kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobadan kugu heerana waxaa ka mid noqon doona ciidamada militariga Soomaaliya oo markaasi al-shabaab kala wareegay deegaan muhiim ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waana soo gudbi doona deegaankaasi magaciisa iyo halka uu ku yaalo iyo sarkaalka hogaaminaya oo deegaankaasi la wareegay deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo barusi ugu dambeeyay ka socda waxaase ka yaabanaya dhinaca kale fashil iyo wajhumo ayuu markaas la kulmayaa kacdoonka sababta koowaadna waxaa iskala madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba maxay tahay kacdoonka sababta uu fashilinayo madaxweynaha maadaama asagu ku dhawaaqay dagaalka al-shabaab looga soo horjeedo waxaa kaloo daawo doontaan Roobo Abu Mansuur wasiirka arrimaha diintana waxa uu sheegay qorshe la yaab leh oo al-shabaab lagu adkaan karo haddaba qorshahaas ayaa daawo doontaan inuu soo gudbi doonaa qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warar kale oo caalamka diblomaasiyadda Mareykanka oo amar dul dhigay dhinacyada ku dagaalamaya waddanka Itoobiya fadlan haddii aad nooga subscribe noo saarkan balada kana furo nasi share garay saaxiibadii meel kasta joogan idinkoo kumatay like noo reebaya aad badmaasantiin aan ku bilowno wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay la wareegeen deegaanka Xawaaley ee hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada militariga Soomaaliya ee xoogga dalka al-shabaab waxay kala wareegeen tuulada Xawaaley ee u socota degmada Balcad oo ah xarun al-shabaab ay ku maamuli jireen canshuuraha ay ka qaadaan gaadiidka iyo beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ciidanka ayaa waxaa hogaaminayay Korneel Abuukar Buuno waxaana la sheegay inay markaas ka yimaadeen dhanka iyo Cadale al-shabaab ayaa iskaga baxay deegaanka Xawaaley markii ay ka war heleen in ciidamada dowladda ay ku soo jeedaan waxaana dagaal la'aan kula wareegay ciidamada militariga ee Shabeellaha Dhexe markaas ka howlgala al-shabaab ayaana ku dhex milmay dadka deegaanka waxaana ciidamada dowladda oo dhowr jeer gaaray deegaankan ay dib ugu soo laabteen iyadoo dib markaas ugu soo noqdeen al-shabaab madaxweynihii hore ee Shabeelle Maxamed Cabdi Baare ayaa qabashada Xawaaley ku qeexay mid muhiim u ah in laga hortago al-shabaab ee ka imaanaya jubbooyinka kuwaas ku biiraya dagaalka Hiiraan taliya Buuno iyo askar uu ayaa la wareegay deegaanka Xawaaley ee degmada Balcad buundada Xawaaley ayaa ahayd meel muhiim ah oo iskaga kala gooshi jireen shabaabka Jubbaland ilaa Hiiraan waana horumar wanaagsan oo weyn haysashada aaga waa muhiim ayuu yiri Maxamed Cabdi Baare tuulada Xawaaley iyo dhowr tuulooyin kale oo hoos mada magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa muhiim u ah al-shabaab ayadoo al-shabaab markaas ay haystaan tuulooyin kale oo markaasi isla Shabeellaha Dhexe ka tirsanaa dhinaca kale warbixintan ayaan eegaynaa kacdoonkii ayaa fashil qarku u saaran maanta oo Oktoobar la joogana dagaalkii kama dambaysta noqon lahaa oo lagu ciribtir lahaa al-shabaab mise dalka Soomaaliya oo isku tashaday oo tusi lahaa adduun weynaha arrin ugub ah oo ah in markaa waddan sabool ah oo cunaqabateen hub ay saaran tahay oo dagaal aan soo noqosho lahayn ku qaaday ururka al-shabaab oo xubin weyn ka alqaacida guushiisa lama gaarina dagaalkaas wuxuu joogaa in calankiisa uu si geesinimo u sida gobolka Hiiraan oo qura kuna taagan yahay wacadka uu qaaday dadweynihiisii iyo falantii beelihii kale oo iyaguna markaas wacadka ku qaaday in ay taakuleynayaan kuna dayanayaan waxa ay maanta ay ka yihiin dagaalka daawadayaal dhaliil mudan ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu iclaamiyay dagaal markuu ka soo noqday safarkiisii ugu horreeyay dalka Turkiga inay jirto hal wado oo qura oo markaas lagu wajihi karo al-shabaab taasoo ah qori caaladiisa isagoo diyaariyay qorshe ebyan ayuu misna dhowr jeer ku celceliyay in xukuumaddiisa uusan ka qaadanin muddo ka badan hal sano sida muuqata hadalka madaxweynaha waxaa dhab u qaadatay al-shabaab oo aruus iyo tabaabasho ku dhaqaaqay kalana soo degay cardheero oo gacanta ugu jirtay September 3 ilaa 2022 doonayay in hub kale ay sii qaataan muddo dheer kadib waxaa la arkaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud cidda uu ka soo jeedo beeshiisa ay imika ay sameysay mid markaas dadka aad u yaabaan oo ah in aysan markaa dagaalkii ay ka dhigeen kaliya ugu soo bandhigay subka ciidamo ku xitaa dowladda ka tirsan ay sahayn kuwa qabaa'ilka oo beesha Xasan madaxweynaha ka soo jeedo ayaana faalooyinka qaar ay keenaysaa in dadka aad ay uga hadlaan in madaxweynuhu uusan dagaalka daacad ka hayn beeshiisa inkastoo asigu madaxweynuhu ku dhawaaqay haddana beesha ayaa eedda loo jeedinaya oo asigu ka soo jeedo oo ahayd in markaasi hubka ay qaataan qaybihii dhexe ayaa daawanaysaan janalkeena saaxiibayaal haddii aad noogu soo subscribe noo saarkan balada kana furo wana sii share garay saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo commentiga like noo reebay aad baad u mahadsantihiin markana
qorshe la yaab leh ayuu keenay wasiirka arrimaha diinta Mukhtaar Robow al-shabaabkii hore. wasiirka awqaafta arrimaha diinta xukuumadda Soomaaliya Mukhtaar Robow Abu Mansuur ayaa culimada Soomaaliyeed hordhigay dalab ah in dhanka fikirka ay kala dagaalamaan al-shabaab. wasiirka oo ka mid ahaa culimada markaasi shalay gelinkii dambe marti ku ahayd barnaamij ka baxay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in al-shabaab markaasi la gaayay goortii lasoo afjari lahaa. waa sida uu Mukhtaar Robow hadalku dhigay, ilmahaas duurka ku jira luuqad aan rasaas ahayn fahmi maayaan, kuwa soo dirayna ilmahooda jaamacadaha iyo adduunka markaas ka dhigtaan. horaan u sheegay aan iska dhicinno oo hal maalin aan ku dhaqaaqno ayuu yidhi Robow. wuxuu intaas ku sii daray haddii culimmada bannaanka lasoo istaago afkaarta ay isku waafaqeen ee ah dagaalanka al-shabaab waxay u guulaysan doonaan sida reer miyiga qoryaha qaatay ay markaasi u guulaystaan ayuu yidhi Robow. wasiirka ayaa sheegay in al-shabaab ay si tartiib ah dadka Soomaaliyeed ay u laanayaan, balse haddii hal maalin loo dhaqaaqo ay geeridu dhankooda u badnaan doonto, taa dilalkoodana laga adhaysan doono. waasuu hadalku leh Robow wuxuu u mahadceliyey culimmada reer Minnesota ee dalka Mareykanka oo codsaday mowqifkooda dadka ugu baaqay inay u midoobaan dagaalanka al-shabaab. uu sheegay inuu yahay mid markaasi lagu cibaadaysanayo shacabka Soomaaliyeedna ay ku heli doonaan nafis iyo markaasi ay ka hortagaan wax walba oo dhibaato dhanka al-shabaab kaga imaan kartaa. dhinaca kalena wararka gobolka waxaa ugu weyn xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray fiidnimadii Jimcihii ku celiyay mowqifka Mareykanka isagoo sheegay inay uu aad ugu walacsan yahay rabshadaha ka socda waqooyiga Itoobiya, gaar ahaan bartilmaameedka aan kala sooc lahayn ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah. eegayga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika Mike Hammer ayaa Jimcihii ku sugnaa magaalada Addis Ababa. booqashadaas oo qayb ka ah dadaalo lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka ka socda ee ku dhawaad 2 sano oo u dhexeeyay ciidamada Itoobiya iyo xoogga Tigreega. qowmiyadaha reer galbeedka uu ku jiro Mareykanka ayaa Arbacadii ku booriyay dowladda Itoobiya iyo jabhadaha xoreynta ah ee shacabka Tigray TPLF inay bilaabaan wadahadallo nabadeed oo uu hogaaminayo Midowga Afrika, waxayna ugu baaqeen dalka dariska Eritrea iyo ciidamadeeda kala baxdo gobolka. goobta dagaalka uu ka socdo, Hammer ayaa wadahadal kula yeeshay Addis Ababa wasaaraha ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Demek Meknon, kaas oo dib u xaqiijiyay sida ay dowladda uga go'antay in si nabad ah lagu xalliyo colaadda ka aloonsan waqooyiga dalka. iyo wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ku soo qortay boggeeda Twitter-ka. arrimahan oo idan ayaa ku soo aaday xilli dagaalada u dhexeeya Itoobiya iyo sidoo kaleete jabhada TPLF ay xiriirka isku shisheeynayaan, waxaana madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Joe Biden uu sheegay in muhiim ay tahay in Itoobiya ay qaato wadahadalka. ከአንድ ሳምንት በኋላ ኢትዮጵያ ስድስተኛውን በቁጥር በአይነቱ የመጀመሪያውን ምርጫ ታካሂዳለች። በዚህ ምርጫ መንግስት